بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa cajaladii labaad ee siiradii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh, waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. aynu ku jiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa, waxaynu soo gaadhnay isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday awowgii cabdilmualib oo markaasi uu kafaalo qaaday adeerkii abi aalib. culamaai taarikh waxay wariyaan abi aalib inuu aada u jeclaa, xataa socdaaladiisa iyo majaalistiisa iyo meelaha u fadhiisanayo inuu kaxaysan jiray. waxaa la sheegaa inuu safar la galay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yar, oo 12 jir meelahaasi oo kale ah. safarkaasi oo abi aalib sham uu ku socday oo tijaaro ah, laakiin wiil yaroo sii kaxaystay buu markaasi ahaa oo 10 jir 12 jir meelahaasi oo kale ah. imaam tirmidi siduu xadiidka kusoo warinayo waxa uu tilmaamaya safarka markii uu ku jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la socda adeerkii abi aalib iyo koox kaloo carbeed inay kusoo baxeen nin raahiba, oo raahibkaasi oo baxiira la odhan jiray. raahibkan iyo magaciisa waa yani tabaarus ka tira badan baa ku jira. jarjis waa la odhan jiray bay yidhahdaan, jarjis way ku sheegaan. cidduu ahaa way isku khilaafaan waxyaaba badan, laakiin markaynu eegna xadiidkaasi tirmidiya inta ugu badan lamala sanadkiisa ugu roon yahay. ninkaasi raahibka bay u yimaadeen. raahibka markii ay la soo degeenna wuxuu gartay astaamihii nabiga calayhi salaatu wasalaam, dadkuu ka dhex baarbaaray, dabeetana wuu helay. wuxuu ku yihi ninkani waa sayid alcaalamiin, waa rasuul ilaahay buu noqon doonaayo kale. maxaad ku garatay? su-aala bay weydiiyeen, dabeetana arrimuhu sheegay. arrimuhu sheegay waxaa kamid ahaa dhacdooyin baan arkay buu leeyay nebi mooyaane cid kale ka suurtal gaar ahayn. wuxuu kaloo sheegay inuu khatam nabuwa garabkiisa laga eego. nabiga calayhi salaatu wasalaam shaabad nebinimo aba xaggan dhabarka kaga taalay garabkiisa, oo timo qayb madow bar madow halkan ku taala oo rasuulnimadiisa sheegaysay. taana ka baada buu yihi waa laga helay. dabeetana si fiican buu usoo dhaweeyey, waxaanu abi aalib u sheegay uu ku yihi markaas wiilkan mar dambe sham ha usoo kaxayni, waxaan uga baqayaa romanska iyo yahuudda. kadib riwaayadkaasi waxay sheegayaan abibakar markaa wuu celiyey. xadiidkan asalkiisa horta muran badan baa ka jira min xayu sanad iyo min xayu lmatniba, waayo matniga xadiidkaasi waxaa kusoo aroray in abibakar iyo bilaal ay la socdeen, laakiin waa war aan jirin. sida uu xadiidku udhigayo matnigaasi sheegaya in abibakar iyo bilaal ay ku jiraan nuqaad xadiid dhammaantood waa radiyaan ama iyada waa daciif. inta soo hadhay waa haabit bay ku sheegaan. si kastaba ahaatee wuxun buu sheegaya xadiidkani marka la isku wada daro inuu ninka raahibka ahi ka dhex arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam astaan tilmaamaysa nebinimadiisii oo una sheegay. laakiin marka min xayu sanat lxadiid marka laga qabto culamadu matniga iyo sanadkaba aad bay uga warwaramaan, aad baana wax uga radiyaan, inkastoo culamada baray sugaan. kolleyba waxaan laakiin ka sugmaynin waxyaalaha mustashriqiintu isku dayaan inay ka tilmaamaan oo ay yidhaahdaan sidii qur-aankaba ay mushrikiintii carbeed sheegayeen inama yucallimuhu bashar, ama ay sheegayeen waxa uu cid kale wax ka soo bartay. ayay qaarkood waxay isku dayeen inay yidhahdaan nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam waxba looma waxyoona, ninkani waxoogaagi uu kasoo bartay ayuu dadka u sheegay. laakiin iyana waa hadal tira aan sal lahayn, waayo nin safari 2 saacadood oo meel fadhiistay wuxuu nin ka dhegaystay, weliba ilmo yaroo 14 jir ama 12 jiri qadiyad nebinimo kama waranto. marka waa iska war aan runtii radinna u baahnayn, shaki kalena usii baahnayn. 2 saacadood ama saacad qada ama raashin la cunayo meel la wada fadhiyey baa wax lagagu bartaa. weliba aanay jirinna kitaab markaasi tawraad iyo injiishi maanta waa la helaya tarjamad carabiya, wada tarjamo carabiyana ma jirin. oo intaasi dheertay inuu nabi maxamedna waxna qori jiray waxna akhri jirin. yani waa waxaan macquul ahayn in warkaasi oo kale la sheego.
laakiin waxa unbuu tilmaamaya warkaa cumuumkiisa marka la isku daro inuu ninkani ka arkayay sifaadkii ama astaamihii nebiga lagu garanayay. waxyaabaha taarikhda nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa ay ka tilmaamaan ragga taarikhda qoray waxaa kamid ah inay soo wariyaan inuu nebiga oo yar oo 20 jir meelahaasi inay dhacday dagaalkii la odhan jiray xarb ulfijaar, oo weliba xarb ulfijaar iraabica bay dhahdaan, yani 4 dagaal oo isku magacaaba jiray bay dhahdaan. 4tan dagaal waxay dhex mareen ba la ydhahdaa nimanka quraysh iyo qabiilkii weynaayo ee quraysh ka tirsanayd kanaano la odhan jiray wada socdo xilfi wadaaga, iyo niman la odhan jiray qayso caylaan. labadaa qabiil baa dagaalla dhex mareen bay dhahdaan. dagaaladan xataa culamada taarikh waxay tilmaamaan 3 dagaal hore iska munaawashaat unbuu ahaa, yani waa laisu googoodiyey ama laisu hanjabay ama laisu yaro hub urursaday, laakin wax naf leh 3 hore ma dhicin ba la ydhahdaa. kan afraad ayaa la ydhahdaa unbaa dagaal dhacay sida culamada taarikh wariyaan. waaqid iyo ibnu isxaaq oo aan sanad kusoo aroori ba qisada laga wariya, waxay dhahdaan nin baraas la odhan jiray ayaa wuxuu laayay 3 nin oo qayso caylaan kamid ah, yani kan horeya qabiilka kanaanada la ydhahdo ee qurayshna ka tirsanayd. dabeetana ninkan isaga reer kale 3 nin ka dilay. warkii baa yimi cukaad waa meel suuq ahayd oo tijaaro wax lagu kala baacabsanayn jiray baa warkii soo gaadhay. warkii markaa meesha soo gaadhay ayaa laysu dagaal urursaday. quraysh iyo kanaano oo dagaalkooda uu hogaaminaya bay dhahdaan xarbi ibnu umaya ninkii la odhan jiray oo oday u daaweynaa markaasi ahaa, iyo qolada kale ayaa dagaal dhex maray. dagaalkaasi waxaa la ydhahdaa waxoogaa markii la isdirayay markii hore waxay umuuqatay quraysh iyo kanaanaba in laga xoog batay gelinkii hore, laakiin duhurayowdii meelahaasay soo rabaal celiyeen. waxay u badiyeen marka ayana markii dambe inay waxoogaa in badan ka laayeen, laakiin casarkii gooray ku dhadhowdahay ayaa koox quraysh kamid ay dhexdhexaadin iyo wax isku dayday. waxaa lagu heshiiyey markaasi in dagaalka la joojiyo, maydkana la tiriyo, wixii maydka la isdheeraado markaa biyo la kala qaato. saas bay wariyaan culamada taarikh. waxay riwaayadaasi markaa ibnu isxaaq iyo waaqidi ay ku darayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalinyaro oo 20 jira joogay, laakiin dagaalka muu gelin bay leeyihiin gamuunada ayuu adeeradii u hagaajinaya uu siinayay, laakiin wax ka asaxay ma jiro min xaytu sanadiyana marka la eego. wax ka asaxay masaladaas inuu nebigu dagaal ka qayb galay hore oo qabaa'ila wax ka asaxay ma jiraan. culamada taarikh waxyaabaha dhacdooyinkii hore ay ka waramaan waxaa kamid ah waxaa lagu tilmaamo xilf alfuduul ama xilf ayibiin, xilfiga la ydhahdo waa heshiis dhacay bay dhahdaan dagaalkaa dabadi. heshiiska kani isagu inuu dhacay axaadiis sugaysa ayaa jirta oo weliba nebigu uu ka qayb galay. inuu nebigu ka qayb galay way asaxday insha allahu tacaala, waana kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey inaanan shahidtu xilfa almutayibiina maca cumuumati waana gulaam fama axaba ana li xumra nicami waana ankusu. ama riwaayadka qaarkoodna ay tilmaamayaan laqad shahidtu fi daari cabdillahi bni judcaana xilfa ma uxibu ana lii bihi xumra nicam walaw idduciya bihi fi lislam laajabt walaw udciya bihi fi lislam laajabt. yani waa xadiidkii sheegaya inuu nabigu laha alayh salaatu wasalaam heshiis baan ka qayb galay, adeerada iyo dadka keega aan kala qayb galay. heshiiskaasi waxaa lagu qabtaa la yihi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillahi bni judcaan. cabdillahi bni judcaan waa nin maalqabeennadii ugu waaweynaa maka kamid ah, waa nimankay odhan jireen koobab dahabay wax ku cabaan. ninkaa gurigiisa la watay, laakin waxaa la yidhahdaa nin wanaag badan buu ahaa marka samaka talinta iyo wanaagga la eego. ninkaa gurigiisa heshiiskii lagu qabtaan ka qayb galay buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam. heshiiska inaan ka qayb galayna yani aad buu nebigu ugu faraxsanaa. wuxuu leeyay maan weydaadsadeen geel casaas, maanta haddii laygu yeelana heshiiskaa mar labaad waan geli lahaa buu leeyahy. heshiiskana waa heshiis ku saabsiisan cadaalad. cadaaladana qofka muslimkii mar walba uu taageeraya. waxaa la yidhahdaa asbaab bay keenaan culamada taarikh ay sheegaan. waxay dhahdaan nin qabiilka zubayd la yidhahdo ka tirsan ayaa alaab maka keenay, dabeetana waxaa ka iibsaday ninkii alcaas ibnu wail oday la odhan jiray fahmi, odayadii quraysh ugu madaxadka kamid ah. alcaas ibnu wail baa camar ibnu caas abihi, caas ibnu wail baa ka iibsaday baa la yidhahdaa. caas ibnu wail markuu ka iibsadayna lacagtiiba hore u siin waayey. dabeetana ninkii waar adduunkayga hala siiyo waxoogaa sheegay, waa loo dhegdhegi waayey. ninkani maadaama uu sahmi ahaa qabaailka ay xilf wadaada hayeen buu utegay reer cabdidaar iyo jumax iyo cadiy iyo oo waxaa jirta qurayshi. qusayi markuu dhintay ayay isku qabteen rifaadada iyo ciddii qabsan lahayd iyo siqaayadii ama
zamzamkii cidda dadka ka waraabinaysa iyo xujaajta cidda waraabinaysa iyo waxaasaa la isku qabtay. marka la isku qabtay ayay quraysh dhexdeedii ilmo qusayibaa xilfi kala samaystoy reer bani cabdidaar iyo kooxda kale ee reer bani cabdimunaaf ayaa isqabtay. qabailkii quraysheeda kalena iyaga xilfo wadaag la wada kala yeesheen. laba xilfood ka macruufa buu ahaan jiray markaa jiray. kooxdii markaa ninka kan alcaas ibn wail sahmi buu ahaa, marka waa reer bani cabdidaar qoladii xilfo wadaaga la ahay, ayuu u tegey. waxba waa loo qaban waayey. waxa ay sheegaan markaa wuxuu fuulay baa la dhaha jabal abu qubays, dabeetana gabay oo dulmigiisa ku sheeganayo sida loo dhacay buu tiriyey bay yidhaahdaan. gabaygiiba waxaa maqlay bay dhahdaan zubayr ibn cabdilmutalib. dabeetana wuxuu war ninkaasi wuxuu sheeganaya wax laga taga maahe hala wada hadlo. saasi daraadeed ba guriga ninkan laysugu yimi ba la yidhi xilfiga sababtiisu kaas ahayd ba la dhaha. laakiin xilfiga sababtiisu inay ka ahayd waa iska dhacda taariikhdu ay sheegta un. laakiin intaas saxda aynu haynaa waxa weeyaan in xilfiga kala jiray oo guriga cabdillahi ibnu judaan ku jiray, oo xilfiga asalkiisuna wuxuu ahaa waxa wada galay bay dhahdaan reer banu hashim iyo bani lmutalib iyo asad ibn cabdilcuza iyo bani zahra iyo taym bani mura. intaasoo qabiil baa xilfiga wada galay bay dhahdeen. daartii cabdillahi ibnu judaan ninka la ydhahdaana lagu wada galay. waxaanu xilfigaasi ku salaysnaa unoo ahaa maka gudaheeda qof lagu dulmiyaa inaanu jirin ilaa inaynu uhiilino mooyaane. awal hiilku dee talon bu ahaa, ninkii tallana talkii unba uhiilinayay, ninkii tallaana waa la dafirayay. laakiin xilfigani wuxuu ku salaysan isagoo cadaalada ah. cid kasta oo dulmi magaalada maka inaan dulmi ka dhicin, cid kasta oo maka joogta oo dulmi laga galo inaynu uhiilino. waxaana la yidhahdaa ninkana waa uga soo qaadeen adduunkii. alcaas ibn wail ninkii la odhan jiray, ninkii zubaydiga ahaa, zubaydi waa reer yamaneed yani nin ah, way uga soo qaadeen xoolihiisi. xilfigani kaasu ahaa. waxyaabaha markaa intii taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa la sheegay uu galay waxaa kamid ah heshiiskaa raggii galay ayuu kamid ahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii dee adeerkii buu iskala joogay abi aalib nimaan adduun badan, inkastoo odayada quraysh wax la weydiiye u kamid ahaa, laakiin nin caruur badan oo aan adduun badanna lahayn ayuu ahaa. marka waxaa muuqatay xataa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku caawinayey mararka qaarkood inuu shaqeeyo isagoo inan yara oo uu xoolaa raaci jiray. maka gudaheeda waa ka axaadiista saxiixa u tilmaamayo inuu shacbu maka calaa qaraariis inuu ku raaci jiray ariga ama xoolaha. markii uu nebigu waxoogaa leekaaday ee uu nin dhalinyaro fiican noqdayna baabka tijaarada ayuu u weecday, oo waxaa la tilmaamaa inuu tijaarada ka qayb galay. masalan xataa ay tijaaro wada lahaan jireen ninkii la odhan jiray asaib ibn abi saib almakhzumiy, oo xadiidka masalan abi daud uu warinayo iyo ibnu maaje iyo musnad imaam axmed ba kusugan. waa ka tilmaamaya ninkaasi markii uu yimi yowm alfatx maka markii la furtay maalintuu ninkaasi u yimi wuxuu lahaa marxaban biakhi wa shariki, soo dhawow walaalkay iyo ninkii shariik aan wada ahaan jirnay, yani tijaarada wada lahaan jirnay. culamada taariikhdu waxay sheegaan markuu dhowr iyo 20 jir marayay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu safar kaxeeyey sham ku socda oo gabadhii khadiijo la odhan jiray ay lahayd. wax alaaliya waxa ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda riwaayaadka ku saabsan oo dhamina inta ugu badan la iyaguna waa riwaayaadkaasi ahlu siyarku ay wariyaan, lakin culama alxadiid sanad ahaan ma sugaan. lakin cumuuman iyada midi waa dee la hubaa, muran kuma jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu khadiijo guursaday. khadiijo inay ahayd haweenta u dhashay caruurtiis oo dhan marka ibrahim laga reebo, ibrahim mariya alqibtiya ayaa dhashay, lakin 6dii caruure kaleba waxa u dhashay khadiija inay ahayd axabu nisaa ama haweenka kuwa ugu jecel yahay. bal nabigu calayhi salaatu wasalaam markastoo lasoo hadal qaaday wanaagay usamaysay inuu in badan xasuusan jiray. xataa caaisha iyadoo ay dhimatay bay ka masaystay, yani khadiijo aan noolayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu uhadalhayn jiray hadduu wax qalo ama uu xoola bixinayo khadiijo wuxuu xusi jiray dadkii la asxaabka ahaa haloo geeya waxaas buu odhan jiray waa khadiijo asxaabteedi ama qaraabadeedi ama dadkeedii. iyadoo dhimatay khadiijo aad nabigu calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray waxay ii gashay ma abaalgudi karayo. ilaa xad caaisha maalintii dambe iyadoo inan yar ay ka hinaastay ay tidhi islaan qawla lacasri maad hadal haysaa, ilahay inan yarba kuugu bedelay bay ku tidhi. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi alla iguma bedeline waxay ii samaysay cid ii gashay ma jirto, yani iyadoo dad oo dhan ii beeniyey ayay rumaysay, afyo maalba ay la kaysatay. markaasuu nabigu wuxuu tirinayay waxyaabahay khadiijo u gashay. 6dii caruur marka ibrahim laga reebana 4 wiil 4 hablood iyo 2 wiilba, yani 4 wiil ahaa qasim oo caruurta ugu weynaa
iyo cabdillah oo u yaraa labadaa wiil iyo 4 hablood oo ah zaynab iyo ruqiya umu kalsum iyo fatima 6 caruurana way u dhashay. nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan risaalada lagu soo dejinna labada wiil iyaga hore ay u dhinteen. 4 hablood laakiin 4tuba way islaameen, islaamkana way soo gaadheen. laakiin 4tuba marka fatima laga reebo 3 isla nabiga noloshiisii bay dhinteen. nabiga calayhi salaatu wasalaam wax caruura uu dhalay oo uu dunida kaga tegay fatima jirtay. fatimana 6 bilood kadib ay dhimatay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu caruur dhalay oo fatima ugu dambeysay. fatimana waxay geeriyootay 6 bilood nabiga calayhi salaatu wasalaam gadaashii. waxaan uga jeedaa yani arrinta ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda waxaan leenahay waa arrin sugan. ama tafaasiisha qaabkii uu guursaday iyo qaabkay u xidhiidheen iyo da'diisu intay ahayd iyo iyada da'deedu intay ahayd iyo wax allaale waxa kusoo aroray culamaa alxadiis ma sugan waxay kusoo aroray. laakiin haddaynu iska sheegno lilmacluuma waxay sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam 25 jir isagoo ah inuu safar kaxeeye khadiija ay lahayd, dabeetana uu xoolihii kusoo faa'iiday uu soo celiyey. wiil ay khadiijo lahayd oo uu xoolaha la kaxeeyey baa uga warramay marka akhlaaq fiicnidiisi iyo dhaqankii nebiga iyo siduu ninkan dhaqanka wanaagsan uu ka arkay. dabeetana khadiijo waxay doontay inay ninkan guursato. kadibna gabadh bintu wahab ina bintu wahaba ay u sheegtay, gabadhii baa nabiga la soo hadashay calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan yani riwaayaadka taariikhdu. kadib buu aqbalay, markaas buu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam. waaqidi oo aynu naqaano culamaa alxadiis yani masruuq inoo sooreeyay wuxuu ku sheegaa riwaayadiisa khadiijo inay markaa ahayd 40 jir, nabiguna uu ahaa calayhi salaatu wasalaam 25 jir. ibnu isxaaq isaguna biduuni sanad wuxuu ku soo aroorinayaa riwaayad kale aan waxba dhaamin inuu ahaa khadiijo inay ahayd 28 jir, nabiguna 25 jir ahaa. culamada qaar kamidina waxay ayeedaan ra'yiga ibnu isxaaq bay yidhahdeen baa u dhow, waayo 40 jir meelaha bay leeyihin aragtay 6 caruurana inay dhasho. yani caadada dumarka waxaa la yaqaanaa dee 45 meelahaba markay marayso inay ilmuhu ka dhamaado fogaato 50 inaanu la gaarin. marka culamada qaarkood waxay rajaxaan ra'yiga ibnu isxaaq sheegaya bay yidhaahdaan inay 22 jirka ahayd inay u badan tahay maadaama 6 caruura ay u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam. ayan kan waxaan leenahay madiina taariikhiyan markaynu eegno waa taariikh la soo aroriya lakin madiina sanad ahaan uma asixin. nabigu calayhi salaatu wasalaam yuu kala hadlay. waaqidi ra'yigiisa isagu wuxuu leeyahay khadiija aabaheed wuu geeriyooday buu leeyahay xarb ilfijaar horteed baabuu geeriyooday. marka adeerkeed ayaa la weydiistay oo loo khidbeeyey oo markaa guuri. laakin imaamu zuhri qowlkiisa iyo ibnu isxaaq isna siduu soo warinaya waxay leeyihin may, odaygu ma geeriyoone waa noolaayo, odayga laftiisa ayuu ahaa ka gabadha bixiyey. ibnu xajar alcasqalaanina fatxigiisa saas buu ku rajaxaya in aabaheedu ahaa ninka la weydiistay. intaasoo qasaa'is kusoo duuduub sanad ahaan wax adag oo asaxay oo jira ma jiraan. laakiin waxa asaxee saxahin waxa weeyaan inuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam khadiija, iyo inay u dhashay 6 caruura alla ka siiyey subxaana watacaala, iyo inay naf iyo maalba lasoo qaybsatay. khadiijo gabadh aada u khayr badan ahay, yani amaan waxa ugu filan in ilaahay salaam usoo diray. yani axaadiista saxiixaysay sugayso waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil uu yimi ee uu tilmaamayey khadiija in ilaahay uu salaan usoo diray. idan khadiija waxaa amaan ugu filan inay tahay saxaabiyadaasi uu alla subxaana watacaala salaanta usoo dirayo. marka aynu eegno qabla nubuwa intii nabiga calayhi salaatu wasalaam aan nabinimadu kusoo degin, dhacdooyinka la wariyo culamaai taarikh ay sheegaan waxaa kamid ah kacbada dhisideedii iyo xukunkii uu kala xukumay carabi qadiyadaasi markii ay isku qabatay. waxay sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam culamaai taarikh say arooriyaan 35 jir meelaha markuu ahaa ayay qurayshi waxay damacday inay kacbada dhisto. kacbadu bay yidhahdaan iyaga hortood markan waxay ahayd radmi ama sukuur waaweyn oo dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawantay, saqafna aan lahayn. kacbada saa utaqaana kacbadu waa daartan yar ee madow, daartan xajarasudku waa dhagax yar koona kaga jira. meeshu waa daar yar oo qol ah oo albaab laga galo leh. xajarulaswadkuna waa rukunka dhagax yar oo kaga sii jira.
quraysh baa markaa dhaakan dhistay nebi de ibrahim iyo ismaaciil baa markii hore dhisay wakti taarikh horay taasi ahayd laakin tan dambe waxaa dhisay quraysh. waxaa la yidhaahdaa markan quraysh ay meesha soo gaadhay iyagu dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawan tahay. dabeetana waxay yidhahdaan waxyaabihii loo hadiyen jiray ama la siin jiray baytullahi alxaraamkii lagu guri jiray ayaa tuugu soo dhacday baabay sheegaan culamada taarikhtaa kamid oo wax ka qaateen meeshii. waxay kaloo sheegaan in dee ay gabowday oo muddo badani ay soo wareegtay oo ay iska dundumaysay oo kale. waxay kaloo sheegaan waktigaasi nebiga 5 sano ka hor intaan lasoo bixin oo kale daad weyni inuu maka maray oo derbiyadeedii sii daldalooliyo sii dhaawacay. si kastaba ha haatee waxaa muuqata inay u baahatay in dib loo dhiso. qurayshina waxay qaadatay go-aanka ah inay dib u dhisto. culamada taarikhdu waxyaabahay wariyaan waxaa kamid ay leeyihiin waxay qurayshi ku heshiiyeen bay yidhaahdeen inay dhisaan ko iyo hanti nadiifa un in lagu dhiso oo waxay yidhahdeen gabadh xun meher laga qaatay iyo xoolo ribo lagu iibiyey iyo xoolo la kala dhaco dulmiye iyo wixii xun oo dhan bay yidhahdeen waa inaynu ka ilaalina. xoolo nadiif oo aynu ognay in si xalaalay usoo baxeen oo keliya. dee dadkuna weligiiba xumaa iyo samaana waa la kala yaqaanay. ta kalena diintii nebi ibraahim ka tegayna waxba kasii harsanaa. walidalik waxay yidhahdeen xoolo nadiifa aan ku dhisno meesha tan. laakin dumistii waa say riwaayadka taarikhdu sheegaan wax sanad oo saxiixa maan arag. waxay kaloo sheegaan dumisteedii iyo kacbada duminteedii baa laga yaro baqbaqay. dabeetana ninka waliid bin almughira la odhan jiray almakhzumi ayaa ku bilaabay isagu bay yidhahdeen oo maalintii hore intuu soo qaatay madarakiisa koore ka qoday. dabeetna markaasay maalintaa cidi uguma tegin bay yidhahdaan oo maalnimaadii baa la arkay inaan isna waxba noqonin meeshiina wax ka dumiyo. markaasa la yidhi arrinta waa hagaage si fiican ha loo dumiyo. si kastaba ha noqotee ninkaasaa bilaabay bay yidhahdeen. laakin isaguna markuu uqaatay madaraka wuxuu lahaa allahuma la nuriidu ila alkhayr. ina waad ogtay inaan wanaag waxaan ahayn u duminayn yani inaan dhisayo un. kacbada way ka baqi jireen waana xurmayn jireen. way dumiyeen kacbadii. markii la dumiyey waxaa lagu heshiiyey in dib loo dhiso. dabeetana qabailkii carbeed ayaa qaybsaday dhagxantii meesha geli lahayd. reer hebel idinku intaa keena, reer hebel intaa keena, reer hebel intaa keena, in waliba inteediba kunta. waxa ka asaxay meesha tan iyadana haddaan sheegno waa xadiidkii sheegayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga iyo cabaas ay israaceen. dabeetana dhagxanta markay soo gurayeen cabaas uu ku yihi war dhagaxani wuu ku sarsari doonaaye marada guntiga furo oo saar halkan oo dhagaxa isaga dhig. dabeetana uu guntigii furtay nebigu iyo halkan saaray. kadibna uu dhacay oo miyir beelay. kadibna uu soo toosay isagoo le war ma guntigayga xidha guntiga xidha isagoo le guntiga loo xidhay. xadiiskaasina wuxuu sheegaya waa marka qura nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qaawisamay. yani waxa uu tilmaamayaa caadaadkii jaahiliyadu ay lahayd inaan nebigu kala qayb geli jirin calayhi salaatu wasalaam. markaasoo qura cabaas yidhi war marada dhagaxa isaga dhigo xagga sarasa. carabtaana gaar ahaan kacbada ayaa gaarkeedii meelaha in la iskaawiyo wax sii weynba may ahayn. waayo qurayshi waa tii samaysatay xeerarka lagu xajo oo ay kamid tahay dadka dabadda ka yimaada qofku inaanu maradiisa uu sitay ku dawaafi karin allahuma ilaa inuu tuurayo mooyaane. haddaad ku dawaafto marka cid danbo xaq ule inay xidhataa ma jirta waa inaad tuurtaa. haddii kale bay idhaahdaan maro reer maka leeyihin waa inaad ku dawaaftaa. marka markaad magaalada timaado reer maka waa inaad weydiisataa nin kamida reer maka inuu ku amaahiyo ama kaa iibiyo maro. dabeetana maradaa reer maka ay leeyihin oo qura ayaa lagu dawaafi karaa bay dhahay. cidda weydaa maxay samaynaysaa labadii huyo haystana jeclo ka qabo oo aan rabin dee markuu dawaafo inuu iska tuuro. kaa waxay idhahdeen isagu isagoo qaawan buu dawaafaya. isagoo qaawan bay markaa dawaafi jireen. walidalik waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam xajkii koowaad markii u abibakr markii cali lasoo diray abibakr wixii lasoo faray waxaa kamid ahaa maxay inaan gaal dambe sanadkaa dabadii kusoo noqonayn xaramkoo dawaafin iyo qof dambe oo ciryaana qof dambe oo qaawan. yani wuxuu kutusaya xadiidku in markii hore qaawanidu iska macruuf ahayd in la iska dawaafo maadaama uu nebigu mamnuucay qof dambe oo qaawani inaanu meesha tan dawaafi karin. idan curfigii carbeeda meesha iska yaalay qaawanidaasi wax weyn maysi ahayn. waa ka ad arkayso isagoo dee dhowr iyo soddon jira in la yidhi marada halkan saaro oo iskaga celi. laakin ilaahi subxaana watacaala uu ka celiyey oo uu miyir beelay. waxa ay tilmaamaan culamaai taarikh soo arooriya waxaa kamid ah markii dhismihii cid waliba inteedii soo dhistay ee meel la soo gaarsiiyey ayaa waxaa loo baahday in xajarulaswadkii la saaro.
xajarul aswadkii markii baa qabailki isqabteen dabeetana awal dhagxantii hore la qaybsay kan waa mid qura maxaa laga yeelaya qabailkii baa isqabtay annagaa saaranayna waxa lagu heshiiyey albaab bay yidhahdeen kamid a albaabada xaramka laga soo galo albaabka qofka inoogu horeeya kasoo galaa wuxuu inoogu gar noqaan aqbal bay yidhahdeen si baa lagu heshiiyey albaabkii ciddii horeysay kasoo gasho bay yidhahdeen sa culamada taarikh sheegayaan ilahay wuxuu ka dhigay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo dhalinyaro dhowr iyo soddon jira waxay yidhahdeen waa maxamed alamin raalli baanu ku nahay xukmiga iyo wuxuu inoo kala go-aamiyo sidaa awgeed ayuu wuxuu say sheegayaan culamada taarikh wuxuu yihi keena go-i baa la keenay dabeetana dhagaxii isagaa qaado go-i buu bartan ka saaray qabailka oo cid walaba odayadiina soo diraan la yidhi go-a daclada wada qabta go-i baa la wada qaaday meeshii markii la gaarsiina isaga ka qaaday oo saaray saasay aqbaleen waxaanay u dareemeen reer walba da inu meesha wax ka saaray maadaama odaygoodii go-a dacalka wax ka qabtay oo xagga sare u gaarsiiyey inaanay hadhow noqonaynin manqaba yani wax laysu sheegto oo qola sharaf dheeraada tirahdo annaga berigii kacbada saan ka yeelay inaan cidina odhan karin saas baa lagu dhameeyey baa la yidhahdaa waxay sheegaan culamaai taarikh horta waxaa cad qurayshi kacbadu halkii ay markii hore ka dhisnayd qawaacid ibrahim way kasoo yaraysa waxay yidhahdaan sababahay uga yareeyeen bay sheegaan oo waxay yidhahdaan maadaama ay ku heshiiyeen xoolo nadiifa mooyaane xoolo kale la gelin xoolii nadiiftee lasoo ururiya gaadi weyday bay yidhahdeen daetana waxay dhahdeen in xunoo kale iyaynan ku darine daartun aan soo yarayno saadkii daarta markaa halkii uu marayay laga soo gaabiyey oo meel ka sokaysa la keenay walidalika waa kii nabiguna alayhi salaatu wasalaam caaisha isagoo la hadlaya waa kii xadiiskii bukhaari ku tilmaamaya lahaa haddii aanay caaisha ay tolka ahayn qariibu cahd dad diinta ku cusub oo aynsan aan ka baqayna inay shakiyaan ama dhib kale inay soo gaado kacbada intaan dumiye buu nabigu yihi ayaa waxaan dhismaha ka dhigi lahaa maxay qawaacid ibrahim ayaan dib ugu celin lahaa oo dhismaha waxaan isaga daynaya sideeda ahaatee dadka kan in waswaasa dhex galo la dhex cararo ayaan isaga daynaya islaamnimada ku cusub islaamnimadooda ha iska haystaan laakin qawaacid ibrahim kuma dhisnaa dib baan u dhisi lahaa waxaan filayaa adigii cabdillahi ibnu zubayr baa mar mala dumiyey oo dib u dhisay oo qawaacid ibrahim ku dhisay laakin xajaaj iyo habarqabayaashii markii ay dileen kadib bay haddana dib u dumiyeen oo ay xaggii kusoo celiyeen marka weli xagga yaraabay jirtaa markii dambena culamada muslimiintu waxay arkeen war meesha hadii marna lasii dumiye marna lasoo dumiyo dhibteeda badanaysa inteeda isaga daayo nabigu intaas isaga daayo kaga tegay laakin cabdillahi ibnu zubayr baa markaa isku dayay inuu qawaacid ibrahim dib ugu celiyo saa daraadeed waxaa la yidhahdaa waxay kasoo kaceen in dhulkii dhismo u ahaa cumuuman inahaas waxaynu odhan karnaa waa inayogii qabla nubuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam intii aanu nebiga noqon siiradiisa caamkee qabla nubuwa markaynu tilmaamnana wuxuu ku caan ahaa nin caqli badan oo degan oo aamus badan oo xishood badan oo dadka waxtara oo gacantiisu furan tahay oo aada u caqli badan oo ammaano dhammaanteed lagu yaqaano cid waliba xataa acdaadiisu ay wax ku aaminaan oo run lagu bartay oo aan weligii been lagu arag oo ilaahayna ilaaliyey subxaana watacaala ilahayna ilaaliyey xataa waxyaabaha jaahiliyaadka yaryar ee dadku iska samsameeyaan ilahay baa ka dhowray subxaana watacaala waxaa la yidhaha weligii sanam ma caabudin ma salaamin bale axaadiistii waa kuwii tilmaamayay zayd ibnu xarisaba iyagoo tawaafayaan markii tawaafka la waday baan sanam soo taabtay bu yidhi markaasu ii diiday qabla risaala markaasan haddana bal ku daya mid kala soo taabta markaasu haddana ii diiday yani xataa taabashadooda muu cuni jirin ba la yidhaha wax alaaliya wixii loo qabo cala nusub sanamadoodan iyo alihadan iyo waxaan ay caabudaan iyo qaraabintoodan oo dhan muu cuni jirin kuwan saaqaawiye iyo waxa kuma jiri jireen markaa quduu maradiisa degta saaray markiina waa miyar beelay iyo indhaa wuxuu kala qaaday isagoo izaari leh khisaalka runtii fiican oo dhan markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa intaasi waxaynu iskaga soo koobaynaa wixii ku saabsiisnaa qabla nubuwa waxaynu u iman doonaa markaasi qayb uu dacwada kor ugu dhawaaqayay oo uu kor waday waxaynu bilaabi doonaa markaasi bal qaybta koowaad iyo markii alla subxaana watacaala uu nebiga ka dhigay ama rasuulka laga soo dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhaha daada nebigu markii ay 40 jir ku dhawaatay ayaa wuxuu jeclaystay in badan in uu iskaga baxo nimankan waxay caabudayaan iyo meelahoodan oo dhan oo khalwa iska sameeyo gaar inuu cidla isaga baxo iska taamulo dunida tan iyo saa alla u abuuray subxaana watacaala uu fiirsado iska cibaadaysto waayo dadku diinta ibraahim xaniifka wax kasii harharay un baa jiray marka inuu iska cibaadaysto
waxay weliba gaar ahaan culamaa taarikh wariyaan ramadaanada inuu bixi jiray, inuu geli jiray godkaasi la odhan jiray Gaaru Xiraa. Gaaru Xiraa waa god weyn oo aada u ballaaran, god yar maaha, waa god aada u afweyn oo weyn. buurtan Jabal Nuur la yidhahdo ku yaala caamada iminka marka xajka la tagay meelahaas ay buurtaas ku dhibaan oo koraan oo godka galaan sunna kusoo tukada, waxaas iska bidca waxba kama jiraan. godkan berigu nabigu galay u ka soo baxay khalas, wax dambe loo tagtago laga qabsaa ma jiraan. godkaasi buu nabigu tegay calayhi salaatu wasalaam. godku buur dheer buu korka ka yaala, muddaad koraysa, yani in nusu saac kolleyba ka badan baan rajeynaya, saacad ku dhawaad meel aya qaadanaysa qofku inuu lugeeyo. waa buur aada u sarreysa marka la eego inta uu qofku wada yaro aada u luuqa looga koro, waa meel aada u cidla ah. halkaas buu nabigu isla bixi jiray calayhi salaatu wasalaam oo iskaga cibaadaysan jiray. halkiisi isagoo iska jooga markaasi ayaa waxa u yimi malakul jibriil. nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadu intaan jibriil u iman waxay soo martay dhowr kala gedisan. masalan talaa'ic nubuwa waxyaaba lagu tilmaama jiro nabigu uu dareemi jiray. masalan sida xadiiskii saxiixu muslimka ku sugan, nabigu wuxuu leeyahy dhagax baan garanayaa maka isalaami jiray. dhagax markuu soo maro uu nabiga salaama calayhi salaatu wasalaam, waa intaanu nebi noqonin. dhagaxi salaama mucjiza ama waxyaabihii alla subxaana watacaala uu nabigiisa ku karaameeyey bay kamid ahay. waxaa kamid ahayd oo waxyigu ugu soo horeeyey nabiga 6 biloodoo hore uu ahaa riyo, wuu riyoon jiray. laakiin xadiiskii saxiixa ku sugnaa siduu sheegayo riyadaasi mila salat subxi buu arki jiray. riyada ambiyadu riyada dadka laba mid aha. dadka caadiga, qofka caadiga markuu riyoodo riyadiisu adwaatu axlaam inay tahay, dhabar shaydaan inay tahay waa suurtagal, yani wax shaydaan waxyooday inay tahay waa suurtagal suu nabigu ku sheegay. waxa kaloo suurtagala inay iska dhadhartay wixii uu maanta soo arag kuna maskaxdu soo celisay. waxa kaloo suurtagala wax waxyiyo inay tahay, wax khayr qaba oo malag iyo cid u sheegtay inay tahay. laakiin mar kastaba iyadu tafsiir bay u baahan tahay. tafsiirkeeduna mar kasta lama haleelo, in badan waxa laga yaabaa si aad moodeyso si aan ahayn inay tahay, yani sida kuugu soo baxday inay wadatay uma badnaan. ama riyada nebiyadu iyadu waa waxyi, ru'ya alambiya waa waxyi. tan adiga riyadaada caadiga waajibka saaranaya adilada sharcigana ka wada. caamadu waxay yidhahdaan shaqeynulba riyada, shaqeynulba isaga ku koobanta haddii loo bishaareeyay hadda wax saxaaydi haddaan ahaynba wax diinta kamid oo daliil galan maaha. daliil wuxuma diinta ah sunna iyo kitaab. laakiin riyada ambiyadu way ka gedisantay. riyada ambiyadu iyadu waa waxay rasmiya, walidalika ba qur-aanka waxaa ku aragtay nabi ibraahim in uu ru'yo ku arkay maxay wiilka inuu qabo ismaaciil inuu gowraco, dabeetana furi baa la yidhi. iyadu waa waxyi. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisu wuxuu ku bilaabay markaasi ru'ya saadiqa. weliba nusuustu siday sheegayso ru'yadaasi 6 bilood buu waxyigu nooca u socday. 6 bilood buu waxyigii nabiga usoo degayay ugu imanayay isagoo hurda un loo waxyoonayo oo loo sheegayay. laakiin waxaa loo sheego sida waagu u beriyo, waagu yani markuu beriyo dee qof waliba waa arkaya, misla falaq subxi oo kale ahay. waxa saa ugu riyoodaa sida cadceedu soo baxaysa kale wax loo hubo oo loo arkayo bay. intaa kadib walidalik ba masalan sheekhana raxiq lmaqsuum kale ayaa wuxuu leeyahay xataa xadiidkii sheegayay juzun min 46 ka sheegayay wuxuu ku tafsiiraya nooca kale. wuxuu leeyahay maadaama 23 sanadood ahay fitradii nabiga loo waxyoonayay, 6 biloodna ay riyadu ahay, waa juz kamida buu leeyahay 46 oo 46 wax buu kasoo ururiyey oo leeyahay waa waxyigii nabiga oo 46 meelood loo qaybay meel ahaan. yani 46 sanadood baa nabiga loo waxyoonayay, 6 bilood kamida waxay ahayd maxay riyo. marka waxa weeyaan marka intii loo waxyoonayo o dhan la isku daro 46 meelood meel ahaan ayay ku dhacaysaa. kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay inuu meeshaasi iska tago. godka Gaaru Xiraa la yidhahdo. godka Gaaru Xiraa la yidhaahdo ayaa waxyigii ugu horeeyay kusoo degay. culimada taariikhda qortaa waktigaas sida ay u calaamadinayaan. masalan sheekhan saaxib raxiiq almaktuum wuxuu leeyahay waxay ahayd maalin isniineed oo ramadaan ay 21 tahay, bisha August 10keedii 610 miilaadiyada, oo da'da nabigu ahayd 40 sano oo qamariya, yani tabayax laga tiriyo 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 maalmood buu leeyahay. haddii cadceeda laga tiriyo leegana 39 sanadood
3 bilood iyo 20 habeen buu ahaa buu leeyahay isagu saas uu xisaabiyey xisaabtan xagee ka timi kow in waxyigu isniin soo dego waxyiga nabigu alayhi salaatu wasalaam inuu isniin ku soo degay axaadiis baa cadashay fiihi wulidtu wa fiihi unzila calay ذاك يوم ولدت فيه ويوم يبعث ويوم بعثت يعني حديث كلام في المامي اذا الحديث بقوا الصحابي سنين انه النبي الشيء عليه الصلاه والسلام حديث بقوا الصحابي والصحيح له هو وحي يقول سنين كل بلادنا حديث بقوا الصحابي قاسوامد قران قوه قوه شيء شهر رمضان الذي انزل فيه القران بشهر رمضان بونبونين لو حكم دبا الى اليه وبشي قران كسودري يعني إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسي وحقوق ضوحته والنبي محمد كلها هدليه أمة الله صادري إنه سيده بالرمضان رمضان ما كان فضائش هذا واحد كمدا طيب بشي سمدا يعني سمدا يرلوك اسكو حجمه أما بشي وحي يقول سيده أياتي واكا كلا قرآن كإلهي كتل الماما يا قرآن كان إنه سيده إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هذين بحكيسا هذين كم بركيتنا وقاعدة كانت المال سمحي إنا أنزلناه في ليلة القدر هذين ليلة القدرين أيسي مثلا شغل حسابتي سنة بانت بقول نقول وحي سجي جيي كو إلى رمضان نقطه رمضان وقت مرة ما دوح رمضان مالتي كان نقول نسوي علماء تاريخ خلافات لما يسوي على قال واحد هذا تضبيط طبعا كيف قال واحد هذا مالتي تضبيط به قال واحد هذا دوري الله كيف يسوي حساب يسوق جايه وحركوا ما دام ليلة القدر سعد ليلة القدر حديث بشر سين ووصري هاي هبين كيسي هاي وانو ترادنا من انا هنا ترى كيسي هنا تقرأ الأطل صلح الأطل سنة الأطل هبين نوع عشوكرا إذن طلب الشيء يسوي لي أفريت وانبه هدية ما الله صدق بح مرة واحد يقول نقدر عليه هاي سيد الله حسابيه حكرات المام يسابوا لي وين السنين نقطة وتر لا تقول السنين كبد ما بقولي تنوع هذا أفرتي سنينات رمضان تأسي كل عيسى رمضان تأفرتي سنينات وحي كذب بيجنا يدوري فالضبط أفريت تمركة قاري على عطنك هي سجادي على عطنك إذا وحي سجادي على عطنك أفريت تمركة صورية وهي يروح وهي أنا واترنا ما يسترن لا يوتر جوا كذا حسيه وحصاق أعطي مكاتي وأنا نغطى محي فالضبط أما قاري على عطنك وحي حديثة المام سأقول لها العشر الأخير إن غطى يبيا ما وتك حجاتي سنتي سوق جاي سقول لها قاري على عطنك في رمضان أو السنين أيها هذا سوق قضاء هذا في وحي من النبي عليه الصلاة والسلام وقصده على كل حال أنت سوى حساب لسوق جاي لكن وحن بان قرنا إن أين وها هبين ليلة القدر وحن بان قرنا إن أين هيد بر رمضان وحن قرنا إن أين هيد محي السنين أنت على النصوص لا هذيك تنكره أي شرته النبي عليه الصلاة والسلام وحي كان يكسر الدقي عائشة واصلة النبي عليه الصلاة والسلام وحي وهو يكسر الدقي وحي هانشر تبيت الريو لما تنوابوا مركو بريو إذا وابري أبوها كشري كدي باعد بدل الشعليسيي غار الحراء أيو كنت حنوت الشري تحنك وطعبت أيو سكبع عبادي سنشري وحوغاها بينها انتو يماطه وخديجة يماطه والراشن قاطع أيو مدام قراتري مركو الراشن قاطع ما لابو صوانا ولا عدنا الراشن وقالوا قاطع ما يشأسوا سووا عبادي سنشري مركي الدنباء أيها وحوية من ملك الجبريل بما يقول اقرأ أخرج نبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا بقاري ملوح أخرية أنا رميه قال فأخذني فوطني حتى بلغ منا الجهد حديث وقت المامي نبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بيخوم أخريه ويقبلني جبريل فيتنحب وعليني إلهي أنزل معي نفس شو خيتي ما تقولي كشو يسيدعي دابا تنوحي يقول لي اخرج هذا انا مره بعض يقول لي ما قاصده وحلا اخريه هذا لو يقطع يقول لي يحب يقطع ولا يسيدي يقرا ويعيري يتنوي يسيداي مركز اسبوع يقول لي اخرج وحنا يقول لي ما انا بغاري ما صدحات يقول يقطع يقول لي انت يسيداي يقول لي اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم آيات كاتا صدقي هو قرآن كنت يقول رئيسي صدقتي انت اسبي يقول آخر كذب وكتغي نبو عليه الصلاة والسلام وبخي حتى بقوه وكدر حد فحديث قاقولة الماميان استعشت بوادره يعني بوادر كرحلة هذا مرقا يردرب كأيها الغنفة سكحرة
kuwani baka daraaddeed ay gariireen gurigii baan tagay buu leeyay anigoo khadiijo ku leh zamiluni idada baan idhi buu yidhi dabeetana waa la daday markii cabsida ay ka baaday ayaa khadiijo yidhi buu yidhi maxaa dhacay warkii buu ka sheekeeyey marka warkii ayuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi naftayda baan u cabsaday sidii loo galay buu ka sheekeeyey khadiija gabadha aad u caqli badan bay caqli badnideedaasi waxyaabaha tilmaamayana waxaa kamid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay alle weligii ku hoojin maayo ilaahay weligii ku hoojin maayo waayo waxay leedahay hal jazaa lixsaan ila lixsaan qofku hadduu samaha sameeyo abaalku helaana waa wanaagu waxay leedahay qof wanaaga sameeya baad ahaan jirta inaka latasilu raxm وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرا الضيف وتعين على نوائب الحق هل هذا ادو واحد هاي قفك علص لما ادينا كعس لا ما دبا كعس لا مش كوا علص مد وحكح عن دارو قطع ربا هاي كان وحبا هيسن مد وحسيه ما هاي مرتده كسورا هاي دباتو كمدك وجر جاربا هاي لي قف وناج هاسن سمينين دبول سكرت ما دو معقول ما بيت المامس لكن انا كان بيتي وحين ودغينا waxa jiray nima iyada ilmaadeeriyin waadee ka dhalay oo loo oran jiray Warqa ibn Nawfal ibn Asad Khadija bint Khuwaylid ibn Asad bayanahay yani ilmaadeer bay ahay ninkan ay ilmaadeerka yihiin nasraaniyadu qaatay masiixiyadu kristan buu noqday marka luqada cibriga buu wax ka soo yaqaanay yani cibrigu waa luqadii yahuuda kutubta marka ku qoray wax uu ka yaqaanay marka waxay leedahay arrinkani ma aha xumaa أو ويدينا اللي كان عالم كينا كان ويكحيس النبي عليه الصلاة والسلام من كاش بيوجيش من كان ما كيوجيش شيء واحد يجري بل ليش إلى ذاك دوحة وقاعد وحرمه بل يوحم بوكجري النبي عليه الصلاة والسلام وحي عقيبه وشيكي الصدي سيبه الشابه سيدي وحي عقي أما الريال مقطع هيد أما أنت جبريل وكلام كل ما يعني وحي الدريم يوحي عقيبه وشيكي markuu sheegay buu wuxuu ku yiri markaas warqa markaa uu gartay in loo waxyoonay warqa ibn Nawfal kow jamadama oo kitaab ha uu dhahay bishaaraadkii hore ee nabi soo baxayo yani ahlu kitaabka agtooda waxa yaala saada ilaahay quraanka ku sugayo wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israa'iil inna rasuulallahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad ilaahay quraanka wuxuu ku sugaya inay hore wahayeen bishaaro ciise uu sii sheegay oo sheegaysa inuu nabi Muhammad iman doono Ahmed nabi la yiraahdo soo bixi doono tawraad iyo injiilna ay hayaan in badan baa la taxriifiyay laakiin qaar kamid ah xataa ilaa hadda magaciisa lagu hayaa mesela kuwa magaca lagu hayo waxa kamid ah tawraad iyagoo tawraad islaamida mid la yiraahdo iyo injiil barnaba oo kale injiil barnaba imika injiil afarawn bay haystaan kristanku afar injiil يعني أفر من وحي قرآن أو كل شيء يعني وعيسى وحيام خلق لنا مركا كان شناد قرنه شناد ميلادي أي كنيسة ببصرة أوديد وأيو إنجيل برنابا وحي وديدين هي عقيدتنا يمكن هيستاريها سدح لإله يسكو إله إن عيسى إله هابو ديدين وحرمتين عيسى النبي عليه رسول كيساها isaga wada marka xaqiiqada oo ay hayaan laakiin kiniisadu qarnigii shanaad bay ka mamnuucday way u diiday maqtuudadiisii meel bay iskaga riday bari daway ayaa laga soo saaray oo nin raahib oo ka soo saaray Fatikaanka waliba yani ka targa meeshooda ayuu ku arko ka soo saaray islaam lagu tilmaamay isna ala kulli xaal ka bari daway baa la soo saaray waxa kale ka taageeray isna oo jira al-bahr al-mayyit darsiga meesha la yiraahdo Urdun iyo agagaarkeeda حفريات تقول الله قضاء أنا بس صار وحيابه تبكي هراء كتجينا آثار سعودي أي واحد بس صار آثار يدنا إنجيل برنابا يوحي شيء يقرأ تقرأه نصوص آيات شيء إنجيل برنابا من تقرأه الشيء يدنا النبي محمد يعني كل واقع إسحاق قبل فرطنات وحشيء يعني لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله ولفظ هذا سيدي سوقنا أنا جيش حتى يهستان بعد كم ده مثلا الأستاذ عبد الله الداود الأشوري مثل الرجلي وولاد كريستنا إسلامي صوت كل إسلامي وحويان وحلايا هي ترجمة لسو ترجمة أفكي عبر لسو ترجمة لقلبية حتى إلا حتى الله يقول إنجيل لوقا
يعني لوقا إنجيل كلا ينادو مثلا شابتر كافر طبناه آيات الله وحقق رب الله الحمد لله في العالي وعلى الأرض السلام وللناس أحمد ترجمة عربية واحد كاسبولي نقص هو كتاب بولي اللي ينادو بايبل قيوم محمد كشاني waxa la mid ah anajisha xataa ay makaaysan rag badan baa tilmaamay wax ku jira sida uu de Ahmed Didat ilaa uu fudaydiyay kitaabkiisa yar oo ku tilmaamayo Bible-ka iyo Maxamed wuxuu ka yiri ala kulli xaal waxaan leenahay ninka kale taariikh badan buu hayay oo sheegaysa in uu nabi soo bixi doono kow هذا يهودنا وتيسي شيء شبه مدينة غير مدينين طبعا واحد إسلام كود ودير واحد كمدها يهودي مدة جنيدة عصارت كسيه ورنشرتي مركب ويدين لما أبغى مركب نرجع أصل الصابة أيام دي تشبين إن أنت الرعاة يدخلهم طبعا لكن ما كنا نبي يعرف نقدر نكوي يعني قال يهود هاي قال يعرف أن ما كان نبي عصابة إلى عيال إذا كان يرمون وكان يهودي كسيه هنشوي شيء وحيوات الإمام يعني عصارت اللي هي وحكم إذا مثلا يدعو حبصله سنة حسنة أنا كسرت سلمان الفارسي هي إسلام لمديسي سلمان الفارسي صحابي قال له رجل لما يتعرف حي شيء أنت وين بتشري على غش على الأرض ولا يقنت شعري تراجمت القرآن إن يدادي سدافيسي على كل حال سلمان الفارسي تعرف بشو حي شيء لا تدبر راهب إنه صار على مراك لا جنبيه وكل بمدوي ما دو مكو رايب لا تدبر يقول هذا يدردانا مركزين هذا عدي صحة يتقدر ما ينك هبل لا يدعو وده هبل من هبل يد جنون هذا ذلك التو إن كانت تقوى بوحدها وتبع كيو دم بيان يقول وريد دارك وحول جرن ما يد أنت صحة عند الله يكون هذا حتى وقت في النبي سبب حيينا كوره نرجعون هذا بخار عينك طبعا لو تمر له عينك أشياء مدينة المال تدوت المال لو كصبح الدوام من دوله نرجع ورابع سلمان الفارسي سبب النبي قال عيسى صاب المدينة بس أنا عرفت ما أنت ضبطي بي أنا أصلا كذا سوي الدين براد عيني لكن أنت لقطي أيها الجبايد بس أنا والله أتوصل يسوى هذا شيء كثير النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدينة بس أنا علامات كل شيء وحياة بحقيقة صحيح تطبق إسلامك على كل حال وحنا لنا آثار بدن باتشته والشيء يسي النبي عليه الصلاة والسلام النبي المديسي ورقة ابن النوفل المركزي وحده الفهمي إنه منك كريه النبي مسؤولي وحيينا وحضر بالعامي markaas buu wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahay warqad ibn Nawfal wuxuu leeyahay waxyiga kan kugu soo degay waa kii ku soo degay oo kale buu leeyahay nabi Muuse waa kii ku soo degay ee shalaaqada ilaama qoomamaleega bal ma dhalinyaro ahaado warqad ibn Nawfal markaa wuxuu marayay baydan aad u gaboobo xataa ma inta si fiican wax uga keenay idan marka baa wuxuu bilaabay inuu qoomamayo oo yaan yar iga dhiga aan ku gargaaro buu leeyahay markaas wuxuu yiri bal ma noolaada buu yiri maalinta talka ku saari doonaan yani waxa arkaysaa in sifaadka nubuwada ee uu nabigu leeyahay warada hayay way kutubta hayeen markaas ku qofay marka wuxuu sheegayaa warqad ibn nabi maxamed alayhi salatu wasalaam in la bixin doono inuu nabiyay oo waxa ku soo degay waxyiyay oo arbayna cilmi doonto oo reer marka ay maadi doonaan oo dadana marka laga saari doono oo hijraan doono ka warxamaya markaas wuxuu yiri ilaahow bal ma noolaado maalinta ay ku saarayaan talka ay ku gargaareen laakiin nabigu ma ogeyn in talkii saaraya xumana isku ma ogeyn inuu nin fiican oo talkii u wanaagsan yahay ayuu isku yaqaanay dadkaad wanaag u samaysaa ku xumaynayana ma aha wax loo darso oo dadkaad wanaag oo dhan ka helay inay hadhow xuma qaawaadan gudayaan ma aha wax loo darso saadana dad nabigu wuxuu ku yiri warida aw mukhrajayhum ma aniga saaraya mu ku yiri warqad ibn Nawfal ma wuxuu leeyahay maalka lagu saarayo ma joogo waa ku gargaaraya nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam aw mukhrijayhum ma aniga la saari doonaayo talkii baa saari doono yeeri doona ha abu ku yiri warqad waayo warqad waa yeela oo yaqaan dacwada islaamku suu qorabuha wuxuu yiri waxaan aad la timid lama iman illa ya alaadi sabaratay yani rasuul ma soo bixin illa ya shayatin lisi wal jinna wa sugu tagana alaad baa laga wariyay haddaan soo gaadhana buu yiri maalintaasina ansuruka nasran mu'azzara waxaan ku gargaari doonaa buu yiri gargaar xoogan laakiin alla ma qadarin oo warqad ibn Nawfal uu dhisay nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay in waxyi uu ku soo degayo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay ama uu degay
oo nin caalima ayuu u tegay oo u sheegay waxa kan inuu waxyi xumaanaha khadiijina markii hore sii dejiso u tilmaamtay dadka wanaagga sameeya wanaaguna inay la kulmaan. kadib wakti yar baa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyigu uu ka go-ay. waktigaa uu ka go-ay culamada qaar baa sheegay 3 sano qaar baa 2 sano bad, laakiin saaxib araxiiq almaktuum isagu wuxuu leeyahay waa ayaamo yarba. culamo badan baa qabta inay ayaamo ahayd oo ka yarayd waktigaa kala sanawaadka sheegaya sida ibn xajar iyo rag lamida, laakiin saaxib araxiiq almaktuum isagu wuxuu leeyahay waa 8 axshaab ahayd. isagu tiradiisii unbuu dib ugu noqdo wuxuu yihi waxay ahayd 21 buu kusoo degay, ramadaan intii ka hartanayd unbuu ka maqnaa, dabeetna shuwaarkoodeedii buu soo noqday buu leeyahay oo waxyiga dambe uu soo degay yaa ayuha almudasiru ya 10 casho ayay ahayd banu leeyahay fatrul waxyigu ama intii waxyigu uu ka maqnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. wararka sheegaya yani bukhaari xadiiskii ku yaalay dheeraaba waxa ku jira balaagaat imaamu zuhari uu warinayo wafima balagana buu leeyahay in nabigu jibriil iyo waxaan intuu ka baqay uu isku dayay inuu iska tuuro buur oo markuu buur sidaa iska tuurba jibriil istusayay, laakiin culamadu waxay leeyihin waxaas ma asixin. bukhaarika ku qorana wafima balagana buu leeyahay waa balaagaat yani waa mursal ma aha xadiis sanadkiisu saxiix yahay oo taxan yahay sida xadiiska qaybtiisa hore, marka dadka bal baa ku kadsoomo oo isiraada xadiiska bukhaari wariyo dabeetana sida walidalik baa culamo badan leeyihiin waxba kama jiraan. ibn xajar al-asqalani baa kamid ah balaagaadkaasi uu radinaya, calaamat al-albani baa kamid ah. cala kuli xaal cismada ayaa u diideysa cismatu nubuwa inuu isku dayo inuu isdilo nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay waxbana isma dilin, meel kuma niyoonin inuu iska tuuro. waa degay markii ay gabadha iyo khadiija iyo waraqaba isugu tagay nabigu alayh salaatu wasalaam waa degay waana yaqiinsaday inuu nebi yahay. kadibna waxaa bilaabmay waxyigii iyo istaba socodkiisii. waktigaasi waa markay soo degtay yani faturka ama waktigan waxyigu ayaynu sheegayna waa waktigii udhexeeyey iqra iyo mudathir qaybteeda hore intay soo degeysay. علماء السير أما علماء التفسير كان من ذلك حساب يعني مصر حاجة جفتي، لكن ما كان صدق حاجة أبي ضعيفتي. وفي الصبع يسار يعني النبي سؤال الويدين أي واحد أي كم بهين مثال شيء كافكي يوحى الويدين أو دبتنا إن شاء الله أنت بالله بشان يطلع عشان تعطي حتى سواء ضعيف. على كل حال علماء السكوات فرصين فطور شراء وكمه يقرأ هي مدثر أنت وقت يقول حي. waxaana la isku waafaqsay aan waqti badan hayn, walidaalika xata ibn xajar warada sanadaha sheegaysa iyagu sanadkooda waa daciif, walidaalika ibn xajar laftiisa wuxuu ku tagay inay waqti kooban ay hayd. kadib ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka soo socda xadiidkii saxiix albukhaari siduu tilmaamayo isagoo ka yimid taxanufkiisii waa waqtiga uu leeyahay saaxib raxiiq almaktuum mashwaal bilowgeedaas bay ahayd, isagoo ka yimi meeshii uu ku taxanufi jiray ama ku tacabudaya ama uu ku cibaadaysanay ku khalweynaya gaarka ugu baxayay oo soo socda ayuu wuxuu maqlay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa loo yeeray. dabeetana wuxuu leeyahay waxaan eegay midigtayda waxba waan ka arki waayey, waxaan eegay dhanka bidix waxba waan ka arki waayey, xagga hore xagga dambe dhan walba waan eegay buu yihi waxba waan arki waayey. markii dambe ayaan kor eegay buu yihi, dabeetana dushayda ayaa waxaan arkay buu yihi malagii godka igu yimid oo malakul jibriil oo kursi ku fadhiya bayna asamaai walard. dabeetana fajuistu minhu rucba buu xadiidku tilmaamay, waan cabsaday buu leeyahay aad baan uga baqay ilaa aan dhulkaba ku dhacay. dabeetana khadiija ayaan u yimi buu yihi anigoo le zamiluni zamiluni dafiruni dafiruni wasubbi calaya maan baarida, anigoo le baan yimi buu yihi idada 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 oo biyo qabowna weliba igu shuba. anigoo sidaa le ayaan u yimi buu leeyahay khadiija waa la daday markaasi markii la daday biyo qabooba iyo wax lagu shushubayna waxaa soo degay aayadkan qur-aana ee suurat almudathir ugu horeeya oo alla subxaana watacaala leeyahy yaa ayuha almudathir qum faanzir warabbaka fakabir wasiyaabaka fatahhir wrujsa fahjur. aayadkaas baa soo degay walaa tamnun tastaktir. waa ilaahay subxaana watacaala uu mabda risaala ugu dhiibayo, yani iqra waxay culamadu yidhaahdaan nubuwada ayaa ku bilaabantay, risaaladu ama daristiina kan bay ku bilaabantay. ilaahay leeyay qum faandir yaa ayuha almudathir baa layidhi waa midkan isduuduubayo qum faandir kaca baa ilaahay leeyay subxaana watacaala oo faandir dig
yani kan isduuduubayo ba ilahay leh subxaana watacaala kaanamaa loo tilmaamayo waktigii dafciga iyo raaxada iyo hurdada iyo nasashadu iyo ceeshka haniiga ee mutaaxa ee waktigiisii waa dhamaaday. arrin weyn baa lagu faraya kacoodi. waa sifa runtii qof kasta oo raba inuu xambaaro risaalada tan looga baahan yahay, oo ah qofkan risaalada xambaaraya inuu ku talagalo inuu xambaarayo arrin aad u weyn oo aan isku runtamin inaad nin guri noqoto iyo inaad nin gola noqoto. yani nin guri inaad ahaato guriga iyo xaaskii carruurta iyo intan kordhiso koolkooliso iyo inaad risaaladan xambaartaa waa isku adagyi. walidalik ba ilahay wuxuu nabiga kuleeyahy ya ayuha almudathir kan isduuduubayo ba ilahay yihi subxaana watacaala qum kac baa la yidhi oo faandir dig oo dadka u dig. waa shaygii koowaade la faro inuu balaaq dadka gaarsiiyo. ka labaad ee takliifkii aayaadka tilmaamayaan waxa weeyaan warabbaka fakabir, inuu isagu naftiisa ku dabaqo qadiyadatan. oo arrintu waxay ku kooban tahay ama ku duuduuban tahay inuu qofku ilaahay weyneeyo subxaana watacaala iyo ka dambeeyo. idan dadkana u dig baa la yidhi, adiguna naftaada ka bilo warabbaka fakabir, alla weynee subxaana watacaala. khusu bitacdiim oo cidna hala wadaajinin. masaladaas waa masale u baahan iyaduna ahlu dacwo inay aada ugu fiirsadaan, oo waa madkhalka dacwada laga galo. madkhalkan waa indaa iyo tacliim alle subxaana watacaala in la weyneeyo oo dadka qulubtooda lagu weyneeyo. qofku markuu caqiidaysto yaqiinsado rumeeyo weynida alle subxaana watacaala ayaa hoggaansankiisu fududaanaya. yani in badan waxaa laga yaaba abnaa saxba aljadiida inay isku dayaan masaalixda waxa laga helaya waxan inay dadka in badan sharxaan, laakiin waxa ka haboon in dadka lagu weyneeyo ilahay subxaana watacaala qalbigooda. haddii uu qofku ilahay qalbigiisa uu ku weynaado wax waloo kalaba markaasi uu ka horumarinaya, shirki iyo waxaasoo dhan uu ka dheeraanaya. idan madkhalka ama meeshii la yidhi dacwada ka gal waxa weeyaan warabbaka fakabir. walidalik ba in badan qur-aanka waxaad arkaysaa iyadoo masaa'ilkaasi ilaahay iyo weynidiisa iyo tacdiimkiisa in badan u qur-aanka ka sheekeynayo. yani haddaad ufiirsato qur-aanka in mise goorba khalaqa samaawaati walarda ama sakara alleyla wanahaara ama waxa alla abuuray iyo qudradiisa iyo awoodiisa, waxaa la yidhahda tawxiid rububiya. markuu qofku si fiican u qoro ayay daba socotaaba tawxiid aluluhiya warububiya, tawxiid aluluhiya wa tawxiid alasmaa wasifaat. yani ilahay weynidiisu markay qofka qalbiga degto ayaa addoonsiguna bilaabaa markaa inuu qofku cibaadadana alle u keli yeelo subxaana watacaala. wasiyaabaka fatahir ba ilahay lehi subxaana watacaala. waa waxyaabihii nabiga la faray ee labaad, maradaada daahirsa baa la yidhi. siyaabka kan culamada qaarkood waxay ku tilmaamaan ku macnawiya, laakiin labadaba cumuumankiisaynu ugu qaadayna. wasiyaabaka dharkaaga fatahir daahirso, dharkaaga iyo jirkaaga iyo najaasaadka iyo mustaqdiraadka ka fogow. idan haddii muuqaalka sare uu yahay in la dahiro, waxaad iska garanaysaa muuqaalka hoose in la dahiraana inuu ka wenye qalbiga.